الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت كدب قدونك أقلك لبدا أقل أما برلمانك كوحيجين لذا برايم مينيسترك مسؤولين تكال حلبان هذا لبدا أقل وهذه سلامة السلام الله عليكم. وقت دير مجرو وهل دقيقة لا يري waxaan rabaa inaan ka gaarsiiyo wacyigelin kooban saan la socotaan safmarka cudurka halista ah waayahan ayaa socda oo waliba si xaddi xoogan oo noqday pandemic macnaha adduunyada dhan safmar ku sameeyay abuuray ama sababay dhimasho badan abuuray intaas oo case oo malaayiin ah inuu ku dhaco walina safmarkiisa uu socdo soona gaaray hadda qaaradaha yani qaarkood sida qaaradda Afrika Soomaaliya ay kamid tahay haddaba waxa weeye yani cudurkii wacyigelintiisa iyo wax badan ayaa yani aad ka warhesheen waxaan rabaa kaliya wixii u dambeeyay in ay idila socodsiin maxay la dad la socdaa tihiin cudurku sidoo ku gudbo waa laga daalay waa la socoteen inuu ku gudbaayo muxuu ahay qoyaanka ka imaanaya neefta soo raacaya ama qufaca ama hindisada ama hadalka xataa doo dhow yahay ilaa mitir 2 mitir inuu jirta in uu maaragtay uu ku gudbaayo kaas waa nooca tooska nooca dadban uu ku gudbaayo dhulka iyo meelaha iyo markuu ku dhaco oo gacmaha la saaro markaasna gacmihi afka iyo la saaro maaragtay sanka iyo indhaha qaabku ku gudbi karaa calaamooyinkiisna waa kuwa aragteen oo la socdo qufac iyo qandho iyo madax xanuun iyo urka waa dhumisid dhadhanka waa dhumisid iyo muxuu ahay to ugu dambeyntii uu noqdo oo foreen ama qaarjeex ama wax la pneumonia oo halisa saddex qaybood loo kala qaybiyaa nooca la yiraahdo mild oo 80% ah oo nooca sahlan astaamihii ay sahlan yihiin oo astaamihii xoogooda aysan yani u xooganeen nooca kale la yiraahdo severe waana 80% waa 80% nooca kale la yiraahdo severe-ka oo 15% oo complication-kii uu soo baxay oo qofkii oo foreenkii ama pneumonia ku soo baxday iyo qaybta kale saddexaad la yiraahdo critical-ka oo 5% oo ay ku jirto muxuu ahay to mortality rate-ka oo 3.5 marka dadka waaweyn ee 65 sano ka weyn ayuu halista u badan tahay ACT underlying disease ama cudurrada xambaarsan qaarkood kuwa wadnaha kuwa muxuu ahay neef mareenka sida neefta oo kale dhiikarka sokorta iyo waxyaabihii la mid ah cudurradaas ayuu ku soo dugaalaa halisna ugu yahay uu gaarsiinayaa stage-ka la leeyahay severe-ka iyo critical-ka dhalinyarada iyo da'da yani dhexe badana hadduu ku dhaco wuxuu noqdaa mild 80% newska u dambeeyay rabay inaan idiin sheego waxay tahay haddii uu ku dhaco waxaa murun ka taagnaa daraasadahan isku khilaafsanaayeen in haddii cudurka uu ku dhaco inuu muxuu ahay to haddana ku soo laaban karaa wax la yiraahdo reinfection taas waa laga hadlay daraasadii u dambeeyay WHO waxay soo saarayaan inuu develop gareynayo ama uu sameysanayo qofka wax la yiraahdo antibody ama immunity ama difaac oo laakiin aan wali waqtigiisa la ogeyn inay tahay hal sano bar ilaa 2 sano saas awgeed at least dadka uu ku dhacay rajada la leeyahay waxa waa inuu reinfection degdeg yeelanayn arinta ugu muhiimsan waa wacyigelinta ee ka hortagga cudurka qofka qabo oo gurigiisa isku ilaaliya dadka kalena uga tura dadka oo iska ilaaliyo la qaato bahashan afka lagu xiranayo oo si joogto loo qaato la yareysanin iyo gacmihii iyo si joogto loo dhaqo bacdama aan niri bahalka yani neefta hadduu ku baxo dropletkii ama qoyaankii haddii ay ku dhacaan meel alwaax ah waxay jiri karaa ama uu jiri karaa viruskii ilaa 8-9 saacadood haddii meel dhala ah ama meel plastic uu ku dhacana ilaa 3 maalmood jiri karaa oo infectionkiisa jiri karaa saas awgeed waxa la amrayo waxa waa si joogto ah in loo dhaqo aad baa maasantiin wacyigelintaas waxaan rajaynayaa inay ugu ducdo billahi tawfiiq salaamu calaykum دكتوركو aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa inoo bilaaban doona daafurkii iyo munaasabadii haddana waxa soo galaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay dastuuri tahay inuu furo kalfadhiga 7aad baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
waxaan sugaynaa inuu soo galo madaxweynuhu kadibna toos waxaan u gudagelaynaa munaasabadii furitaanka xafladda. madaxweynuhu wuu soo galay, waana soo dhaweynaynaa. mudane madaxweyne soo dhawow. furitaanka kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. waad mahadsantihiin. sida caadada ah munaasabadan oo kaleeto waxay mar walba caado inoogu tahay furitaanka saban socodka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal. kalfadhigan waxa weeyaan kalfadhiga 7aad. munaasabadiisuna waxay noqonaysaa munaasabad waxoogaa ka duwan munaasabadihii hore xaaladaha jira awgood. laakiin waxaa nasiib wanaaga in wadciga aan ku jirno iyo ka garqaadashadiisa iyo sida loo agaasimay inay dhammaan howlwadeennada iyo xildhibaanaduba aad iyo aad ugu mahadsan yihiin qof walba ilaalinta iyo tixgelinta fayadhowrka inta badan. munaasabadeenna waan gudageli doonaa. saxaafadda waa mahadsantihiin. waseshinkiinii waxaan gudagelaynaa mudane madaxweyne furitaanka munaasabadda oo ugu horeeyaan aayadaha qur-aanka kariimka uu inoo akhrin doono mudane xildhibaan sheekh shaacir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. munaasabadan toos u gudagelaynaa iyadoo wakhtigu aad u xisaabsan yahay. waxaana ajandaheennii waxa uu ahaa intan inuu ka badnaa laakiin aad baa loo soo koobay. waxaan hadda soo dhaweynhayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish. mudane guddoomiye soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها الجمهورية قدونك لبضا أقل رئيس الوزراء مسؤولين لبضا أقل اللبان لبضا أقل مرتي شرفتك له دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مروين وحا شرفي إنان إذا كلا سو غيب قالوا مناسبة دان لغو فريو كالفردقا
toddobaad ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa noo yaalla howlo badan. waxaa la soo gudagalay marxaladdii transitional periodka ama marxaladdii intiqaaliga ahayd. waxaa looga baahan yahay mas-uuliyiinta halkan fadha dhammaantood isku duubni iyo hufnaan. marxaladaha siyaasadeed iyo marxaladaha caafimaad darro ee jira, arrimaha amniga, daadadka ku soo rogmaday meelo ka mida dalka oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. dhammaan caqabadahaas ayagoo na hor yaalla ayaa haddana waxaa la soo gaaray xilligii kala guurka ama waxaa qarka loo fuulay xilligii transitionalka. sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa muddada aan joogo xafiiska dhammaantiin inaan garab igu siisaan, aan garab idinku siiyo qof walba hawshiisa. haddii arrintaas ay noo suuro gasho, waxaan rajaynayaa doorasho noogu dhacda jawi nabdeed iyo dal caafimaad qaba iyo dawlad cusub iyo dal nabad ah inaan dhaxalsiin doono bulshada Soomaaliyeed. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin bulshada Soomaaliyeed inay dhammaantiin idin han weyn yihiin. mar haddii aad taas hubtiin oo aad ogtihiin, waxaa waajib nagu ah dhammaanteen mas-uuliyaddaas iyo waxa shacabku ay naga sugayaan inaan sida ay tahay u garanno, xil gaarana iska saarno. walaalayaal, waxaan rajaynayaa mas-uuliyaddeenna mas-uuliyad wadareedka inaan si guud iyo si gaargaar ahba u gudan doono sida ay tahay. ma rabo inaan hadalka sii badiyo, mas-uuliyiin badan inaan u fadhiya. intaasaan rabay inaan idin waana idin salaamaya. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho. mudane madaxweyne iyo mudanayaal, munaasabadda furitaanka kalfadhigani toddobaad waxaa joogta madax aad u badan oo ah madaxda Soomaaliya iyo baarlamaanka labada gole. xaaladahan taxadarka caafimaadka la xidhiidha aad bay munaasabaddu u kooban tahay. waxaan u yeedhayaa hadda guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdulaahi. mudane guddoomiye, soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه مدنياشا لبدا أقل بارلمان كفدرالك الصوماليا مرتي شرفك وقهرينيك قدوما سلانك الكعبتو يو آدو قيمة بدن وحانني دينك كما هاد علينيا كسو قيب قلك نقل سو قيب كشين حفلة دن فرطان كالفردك التضبات بارلمان كفدرالك الصوماليا sida uu yahay dhaqanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. munaasabada furitaanka kalfadhiga golaha aqalka sare waxaa caadi u ah inuu warbixin idinka siiyo
hawlihii u qabsoomay kalfadhigii lixaad iyo howlaha u yaalla kalfadhiga maanta furmaaya iyadoo dalku gelayo marxalad loo baahan yahay in si dhow u wada shaqeeyaan hay-adaha dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo daneeyayaasha siyaasadda soomaaliyeed oo idil si loo fuliyo ballanqaadkii aynu qaadnay 2016 dhammaadkiisii markii la dhisaayey baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin caabuqa safarka ah ee la magac baxay COVID-19 wuxuu caalamkoo idil geliyey xaalado aan marnaba uusan aadamuhu ka fikirin inay dhici karaan wuxuuna mar qura kalifay in noloshii caadiga ahayd ay istaagto isagoo dunida ku keenay dhibaatooyin isugu jira kuwa caafimaad dhaqaale iyo bulshaba gaar ahaan dalkeenna Soomaaliya wuxuu noqday mid aad ugu nugul dhibaatada uu keenay cudurka COVID-19 maadaama aynu nahay dal dagaalo sokeeye ka soo baxaya oo ku hawlan dawlad dhisid COVID-19 wuxuu noqday mid markiiba ku faafa dalkooda haddaba anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan munaasabadan tacsi ka diraya dhammaan dadkii inooga geeriyooday eebbana uga baryaya inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo inta uu hayana eebba u yasiro si la mid ah hay-adaha kale ee dowladda wuxuu cawaaqibkani abuuray caqabado uusan baarlamaanka federaalka Soomaaliya horey u arag taasoo nagu kaliftay inaanu kordhinno fasaxii baarlamaanka federaalku ku jiray iyadoo ujeeddadeennu ahayd inaanu ka fakarno qaab kale oo baarlamaanku ku shaqayn karo waxaa inoo qorshaysan in golo waliba gaarkiisa u tashi u galo maalmaha soo socda dib u eegis lagu sameeyo xeerhoosaadyaasha si loo helo qaab lagu shaqayn karo inta aynu la tacaalayno cawaaqibka COVID-19 taa waxaan u samaynaynaa inaynu si habsami leh u gudanno waajibaadka asaasiga ah ee na horyaal oo ay ugu horeeyaan doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurka mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhigii lixaad wuxuu ahaa kalfadhi ayna sanataradu u kala kicin gudashada waajibaadkooda sharci dejinta muddadii kalfadhiga la soo dhaafay ee lixaad goluhu wuxuu ansixiyey 16 sharci oo aad muhiim ugu ah maaliyadda doorashooyinka iyo maamulka guud ee dalka kuwaasoo kale ah sharciga golaha minlayaasha caafimaadka sharciga xuquuqda siyaasiyiinta dowladda sharciga xafiiska madaxa bannaan ee hantidhowrka guud ee qaranka sharciga howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida sharciga shirkadaha sharciga baatroolka sharciga maaraynta maaliyadda guud sharciga wax ka beddelka xeerka saxaafadda sharciga maamulka dakhliga sharciga wax ka beddelka sharcigii iibka iyo qandaraasyada qaranka sharciga canshuuraha furdooyinka sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal sharciga miisaaniyadda qaranka sharciga duulista rayidka sharciga jaangooynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed fiiro gaara wax intisa sharciyeeda oo golaha aqalka sare hor yaalla ma jiro waqtigan xaadirka ah wuxuuna diyaar u yahay inuu goluhu ka howlgalo shuruucda iman doonta ee lagama maarmaanka u ah doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurka goluhu wuxuu waqti badan geliyey inta sharciyadii la hor keenay waxa uu ka talageliyey dhammaan dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka isla markaana wuxuu qabtay
dhegaysi dadweyne oo daafuran oo laga baahiyey warbaahinta iyadoo si toos ah uga soo qayb galeen xubnaha guddiyada ku shaqada lahaa hindisharciyeedyadaas wasaaradaha soo diyaariyey hindisharciyeedyada aqoon-yahano dhallinyaro haween culummo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si loo ururiyo aragtidooda looguna daro hindisharciyeedyada markaa hor yaal golaha aqalka sare arrimaha dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ah mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin geedi socodka dib u eegista dastuurka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay kii ugu muddada dheeraa adduunka bulshada caalamkuna waxay noogu manno sheegataa inay ku bixiyeen lacag fara badan sidii ay Soomaaliya u heli lahayd dastuur sidaad aad la socotaan 2012 golaha ansixinta dastuurka ku-meel gaarkii waxay u igmadeen xilka dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka baarlamaankii 9aad oo isagoon waxba ka qaban xilkii dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku wareejiyey baarlamaankii 10aad oo maraya gabagabadiisa labadii guddi ee u xil saarnaa dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka oo wasaaradda dastuurku kaalinayso waxay soo eebiyeen dib u eegista dastuurka waxayna u soo gudbiyeen qabyo qoraalkii dib u eegista labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo looga fadhiyo inay bilaabaan ka doodistiisa kalfadhiga 7aad guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu horay noogu soo gudbiyey qaraar tilmaamaya habka ansixinta dastuurka oo ay tahay in baarlamaanku ansixiyo si uu guda galo ka doodista qabyo qoraalka dastuurka haddaba waxaan ku boorinayaa labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in mid ka mid ah hortabintooda kalfadhigan ay noqoto inuu guto waajibaadka ka saaran dastuurka si dalkeennu uga baxo isqabqabsiga dastuuriga ah ee ku jira loona helo dastuur ay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waafajiyaan dastuuradooda arrimaha doorashooyinka heer federaal mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku dhownahay xilligii aynu qaban lahayn doorashooyinkii heer federaal oo noo madlanaa si aynu u fulino ballanqaadkii aynu qaadnay 2016 dhammaadkiisii oo ahaa inaynu qabanno doorasho qof iyo cod ah kalfadhigan 6aad waxaynu ansixinnay sharcigii doorashooyinka qaranka ee heer federaal waxaa inoo qorshaysan in aynu ansixinno kalfadhiga 7aad sharciga qabyatirka sharciga doorashooyinka oo aan u xilsaannay guddi wadajira oo ka kooban labada aqal waxaa iyana aan ku tala jirnaa in aynu meel marinno sharcigii wax ka beddelka sharciga axsaabta siyaasadda qabashada doorashooyin heer qaran waxaa lagama maarmaan ah in wadatashi degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan xukuumadda federaalka baarlamaanka federaalka dowladaha xubinta ka dowladda federaalka iyo daneeyayaasha siyaasadda si loo helo qaab raalli la isaga yahay oo doorashada lagu galo waxaan filayaa in baarlamaanku isu xil saari doono doorka isu keenidda dhammaan qaybaha kala duwan ee aan looga maarmayn qabashada doorashooyinka heer qaran dhismaha golaha aqalka sare dhismaha golaha adeega garsoorka mudanayaal iyo marwooyin mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayn aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ku adkeynayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya inay gudato doorka kaga aadan dhismaha golaha adeega garsoorka oo u soo gudbiyaan xubnaha ay soo sharaxaan kalfadhiga 7aad
ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si isaguna uga guddo doorka kaga aadan dhismaha golahaasi oo saldhig u noqon kara helitaanka garsoor madax bannaan oo ay ku jirto maxkamadda dastuurka oo iyadu u xil saaran go'aanka gaarista khilaafaadka dastuuriga ah ee labada heer dowladood iyo arrimaha dastuurka oo dhan waxaa iyana lagama maarmaana doorashooyinka fooda inagu soo haya oo haddii ay dacwo ka timaado go'aanka gaaristeeda ay awood u leedahay garsoorka madax bannaan uu awood u leeyahay gabagabadii waxaan ugu baaqayaa xukuumadda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay wadahadal ay ku dhameeyaan khilaafaadka u dhaxeeya iyagoo u turaya dadka Soomaaliyeed ee la daalaadhacaya cawaaqib xumada cudurkan COVID-19 fatahaadaha webiyada daadad ammaan la'aan iyo dhaqaale xumo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegaysi wanaagsan waa mahadsan yahay gudoomiyuhu haddana waxaa soo dhaweynaa hadal jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan si uu uguna wareejiyo khudbaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane gudoomiye soo dhow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية قدوميها قلها أقل كسرية بارلمان كفيدرالك رئيس الوزراء حكومة فيدرالكا xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaanan hadal jeedinteyda u sii guda gelin anigoo ku hadlaya magaca golaha shacabka waxaan u dirayaa tacsiyo tiiraanyo leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadkii ku geeriyooday cudurka COVID-19 waxaan si gaar ah tacsiyo ugu diraynaa eheladii iyo qaraabadii xildhibaan aadan cali xasan aadan jamhuuriya waxaan dhammaantood ilaah uga baryaynaa jannadiisa fardowsa inuu ka waraabiyo mudane madaxweyne xilka guddoonka baarlamaanka xilliyada ay furmayaan kalfadhiyada waxaa ka mid ah in laga warbixiyo kalfadhigii la soo dhaafay jihaynta kalfadhiga xilligaasi furmaya meesha uu ku socdo iyo howlaha horyaalla golaha inuu warbixin ka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu dhammaaday kalfadhigii lixaad waxaana xildhibaanada golaha shacabka u jeedinay in fasaxooda bil keliya uu noqdo si howlaha muhiimka u ah doorashooyinka qaranka ee golaha horyaallo ay ka mid yihiin dhammaystirka 4 xeer ee sharciga doorashooyinka uu farayo sharciga casaabta iyo howlaha kale ee xiriirka la leh doorashada 2020 ay baarlamaanka ugu suurta gasho in waqtigooda lagu dhameeyo fikrad fiican lagama haysanin in dunida iyo gaar ahaan dalkeena uu saameyn doono cudurka COVID-19 oo aan horay loo arag uu saameeyay nolosha qof kasta ee ku nool dunida iyo gaar ahaan dalkeena arrintaani waxay hakisay habsami u socodka dhammaan howlihii dowladaha iyo adeegyada bulshada waxaana la hakiyay lana xakameeyay qaybo ka mid ah xuquuqdii iyo xorriyaadkii dastuuriga ahayd ee muwaadin kasta ee ku nool dunida uu lahaa furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka tobnaad allah mahadiisa waxaa guul weyn noo ah inaan awood u yeelanay inaan furno kalfadhiga baarlamaanka iyadoo ay dalka ka jiraan
duruufo aad u adag ee uu sababay cudurka faafa ee coronaviruska. mudane madaxweyne, marka la eego xaaladda soo korortay ee faafidda COVID-19 waxay caqabad ku abuurtay howl maalmeedkii joogtada ahayd ee baarlamaanada caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida hay'ado ama ururo kale ayaa dad tiro badan isugu yimaadaan hal meel, loogana baahan yahay inay gacan ka geystaan yareynta halista gudbinta COVID-19 iyadoo isla markaa loo ogolaanayo wada shaqaynta lagama maarmaanka ah ee ka dhaxaysa xubnahooda iyo shaqaalaha taageera dawladda iyo shacabka. arrimaha doorashooyinka, mudane madaxweyne, ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka ee kalfadhigii 6aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya runtii waa guul weyn, hase ahaatee waxaa weli harsan arrimo saldhig ah oo ay tahay in sharciga uu qeexo. labada guddoon ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay 1 March 2020 magacaabeen guddi wadajir ah oo ku meel gaar ah ee dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka oo ka kooban 17 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha labada gole ee baarlamaanka. waajibaadka shaqo ee guddiga waxaa ka mid ah inay la tashadaan cid walba oo sharciga tayeyntiisa looga maarmin, sida guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, wasaaradda arrimaha gudaha, dib u heshiisiinta iyo federaalka, dowlad goboleedyada dalka, hay'adaha amniga, xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan ururada bulshada rayidka qiibahooda kala duwan, si ay u soo diyaariyaan xeerarka hoos ku xusan ee laga sugayo inay baarlamaanka hor keenaan. 1. xeerka deegaamaynta kuraasta baarlamaanka, xeerka xaqiijinta qoondada haweenka, xeerka doorashada xubnaha labada gole ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya, xeerka xuquuqda matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir. intaa waxaa sii dheer guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil ayaa loo qorsheeyey inay hor timaado labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 27 bisha Juun si ay u soo bandhigto qorshayaasha iyo cayimaadda taariikhda doorashooyinka la qabanayo si waafaqsan qodobka 13aad faqradiisa 3aad ee sharciga doorashada. waxaan rajaynaynaa in dhammaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo dhaweyn iyo wada shaqayn buuxda siin doonaan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka. mudane madaxweyne, raalli aada waxyar. mudane madaxweyne, muddo xileedka golaha u harsan oo ay tahay muddo aad u kooban haddana ay indhahan uga hayaan shacabka Soomaaliyeed si uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya u soo saaro go'aano dhaxalgal ah si waafaqsan qodobka 10aad ee qodobka 109 ee xarafka E iyo qodobka 109 xarafka B. xukuumadda waxaan si waafaqsan qodobada aan kor ku soo sheegnay waxaan xukuumadda ka sugaynaa in si dhaqso ah u soo gudbiso xubnaha guddiga adeega garsoorka, xubnaha guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuurka oo muhiimad gaar ah u leh dhinaca doorashooyinka qaranka si baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyo. iyadoo aan ku kalsoonahay in baarlamaanka 10aad uu gudan doono waajibaadkiisa culus ee laga sugayo, geedi socodka dib u eegista dastuurka wuxuu runtii calaamad weyn u yahay
dibudhiska dowladnimadeena Soomaaliyeed uuna noqon doono guul weyn oo dalka gaaray annagana na siin doono taariikh weyn haddaba waxaan dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka codsanaynaa inaan si adag kalfadhigan uga wada shaqeyno si aan himiladaasi uga gungaari lahayn guddiga la socodka dastuurka wuxuu soo dhammaystiray qabiqoryaalka wax ka beddelka dastuurka ee dhammaan cutubiyada dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya qabiqoraalka wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa loo soo bandhigay lagana tashaday shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyadoo guddiyadu ay ka soo ururiyeen talooyin wax ku ool ah guddiga la socodka ee dastuurka guddiga madax bannaan ee dastuurka waxaan rajaynaynaa inay soo dhammaystiraan la tashiga shacabka iyo dowlad goboleedyada haddaba mudanayaal waxaa golaha hor yaalla qaraar ku saabsan habraaca ansixinta dastuurka oo ay soo gudbiyeen guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama guddigu uu soo dhammaystiray hawlihii dib u eegista ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la ansixiyo qaraarkaasi si loo bilaabo dooda ansixinta wax ka beddelka dastuurka waxaan ammaan gaara u soo jeedinaynaa guddiga la socodka dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka mudane madaxweyne si loo yareeyo faafidda COVID-19 kalfadhigan toddobaad wuxuu ka duwan yahay kuwii hore ee lagu qaban jiray dugsiga tababarka booliiska ee lagu martiqaadi jiray bulshada Muqdisho qeybaheeda kala duwan maamul goboleedyada beesha caalamka iyo afheenada dalalka jaarka ah kalfadhiga lixaad ee aan soo dhaafnay waxa uu ahaa kalfadhii ugu shaqada badnaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa la ansixiyay shuruuc badan oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka qaranka iyo shuruuc kale oo ay ka mid tahay shuruucdii deen cafinta waxaana ka mid ah sharciga dhismaha hay'adda dadka naafada ah heshiiska caalamiga ee naafada sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa wax ka beddelka sharciga dakhliga warbixinta xisaab xirka 2017 hindis sharciyeedka leelitirka siyaasiyiinta Soomaaliyeed heshiiska midowga Afrika ee badbaadinta dadka ku barakacay gudaha Afrika كنقشة ميزانية 2019 هشيسك خصية إعلانتا هيدا دقمتك إيوه متك دبيعيكا هشيسك إعلانتا هيدا دقمتك عن موقن هندي الشرعيات كشركتها جناحسية هندي الشرعيات كمعمولك مالية ميزانية 2020 هندي الشرعيات كبترولك هشيسك كمن نقشة هي ده ضمانة مالقشرة طرفية بدن wax ka beddelka sharciga furdooyinka wax ka beddelka sharciga iibka qaranka dib u eegista sharciga saxaafadda hindis sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada hindis sharciyeedka istatistikada Soomaaliyeed hindis sharciyeedka doorashooyinka hindis sharciyeedka duulista rayidka ee hawada hindis sharciyeedka tayadhowrka Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaan u mahad gaar ah u jeedinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay diyaarinta xafladan furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka gaar ahaan habdhowriyaasha baarlamaanka wasaaradda caafimaadka taliyaha ciidanka booliska mudane madaxweyne xildhibaanada sharafta leh ugu dambeyn waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si maamuusan ugu codsanaya inuu xilkiisa dastuuriga gudto oo uu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane madaxweyne ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكفتن ينكفر يا إذن كرهالي كل أنتي نبدأ وأفحرنتهن قارن وأفرينهن
marka waxaa la yiri qofku markuu dhaco marlaad kuma dhaco kuwa afka furan mar hore ugu dhacay marka mise geesinimada ka badatay alxamdulillaah alxamdulillaah guddoonka labada gole ee baarlamaanka xubnaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo xubnaha baarlamaanka ee golaha shacabka ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare xeeraryaha qaranka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan gudoomiyaha gobolka banaadir taliyayaasha ciidanka qalabka sida gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka ee galmudug gudoomiyaha ee baarlamaanka dowlad goboleedka ee hirshabeelle bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 6 aan hadalka dhamaysto si ixtiraam laan su dhageysano si ixtiraam laan su dhageysano madaxweyne u kaade xildhibaan habdhowriyaasha si ixtiraam laan su dhageysano madaxweynaha hoggaansami waaye sida xeroosaadku qabo حسن يرى حسن يرى حسن يرى سيرك جوج
hawshan aan gudanno marka xildhibaanada fariista alla fariisto fariisto xildhibaanada kale ha fadhiistaan fadlan xildhibaan walba ha fadhiisto xildhibaanada taagan fadlan fadhiis xildhibaan kastoo hadda taagan wuxuu la mid yahay xildhibaan qaylinaya fadlan xildhibaan walba ha fadhiisto waxaan isticmaalaynaa qodobkeena xeeroosaadka qodobka 10aad baan isticmaalaynaa qof walba oo arrin fawdaa ku jira waxaan ula dhaqmaynaa xeerka sida uu qabo waxaana qof walba uu mudan yahay wixii uu mutaystay inuu qaato fadlan qof walba ha fadhiista dadka kale taagtaaganna ha fadhiistaan dadka taagan ha fadhiistaan fadhiista fadlan wasiir fadlan
taago madaxweynaha kalfadhiga baarlamaanka inuu furana waxaa la jebinayaa qodob ka mid ah dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay fariista xeeroosaadaad leedihiin hal la fariisto hal la is ixtiraamo madaxweynaha khudbadiisa waa dastuuri haddaan dastuurka ixtiraamayno madaxweynaha hal la ixtiraamo xishoodka yaan laga tegin mudane madaxweyne khudbadaadii dastuuriga ahayd baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay dhageystaan soo dhow madaxweyne mudanayaal marwooyin laba qof baa 300 iyo 29 duubtay maanta waxaa sharafiya inaan maanta oo taariikhdu tahay 6 bisha Juun 2020 aan si rasmi ah u furo kalfadhigii toddobaad ee labada gole ee baarlamaanka waa maasantihiin ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah waxaan marka hore aan u mahad celinayaa mahad iska leh ilaahigii halkan isugu kaay keenay maanta oo noo suurtageliyay inuu shirkaan noo qabsoomo iyo ilaahay naga samata bixiyay caabuqa koronaha ee aafeeyay dunida oo dhan iyadoo la filayay inay Soomaaliya oo aan nahay dal runtii aad u nugul in dhibaato weyn aan kala kulmayno ilaahay waa mahad iska lahaa oo naga samata bixiyay culayskiisana naga qaaday Allah u naxariisto dadkii intii ay u dhintay caabuqaas inta u jiifta oo u xanuunsan ilaahay ha ka kiciyo sidoo kale ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aadan xasan cali aadan jamhuuriya ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariis jannadiisa siiyo kulligiinna samar iyo iimaan oo idinka siiyo waxaan u mahad celinayaa guddiga qaranka ee ka hortagga cudurkan COVID-19 uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha iyo howlwadeennadii iyo bahda caafimaadka oo xaqiiqatan qabtay shaqo dhaxal gal ah waxaa xusid mudan inaan dalka aan ku soo celinay in ka badan 1,200 oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dibadaha cudurkan dartiisa oo ilaahayna nagu guulayay waxaan u mahad celinayaa dawladda Turkiga oo xaqiiqatan maanta ka hor ma imaan dhismahan noogu deeqday aad iyo aad yaan ugu mahad celinayaa waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada gole wada shaqaynta wanaagsan ee muujinaya muddadii 3 sano iyo dhowrka bilood ahaa ee idinkala dhaxaysay hay-adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan qirayaa sida uu ay sheegeen labada guddoomiye la idinku ammaanaya inaad tihiin baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo runtii ansixiyay shuruuc aad iyo aad u fara badan aad ku sifowdeen wax soo saar inaad ahaydeen baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa weliba idinkoo ahaa laba gole inta badan Soomaali khilaafaad kama dhammaado marka aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinaya si kastaba ha ahaato weli waxaa inoo dhiman inaan dhammaystirno sharciyo aad u badan oo aasaas u ah sidii aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeenna qarannimo mudanayaal iyo marwooyin waxaa xaqiiqo ah in ay dawladdan tahay oo markii ugu horreysayna oo la doortayna aan bilaawno inaan raahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dawladdii shacabka waa xaqiiqo taas waxaa daliil u ah in maanta 50 sano kadib aad ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awoodda dib ugu celinaya
shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan si ay u doortaan xisbiga iyo dawladda ay doonayaan si ay shacabka Soomaaliyeed u doortaan xisbiga iyo dawladda ay doonayaan waxa maanta aad u fadhidaan aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu bishaaran aan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda inay dhammaatay iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo oo jiri jirayna way dhammaatay waxaan u gudubnay xilli muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo si xor ah uu ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo waxaan ugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ee xubnaha ka ah dawladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada Baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno isla sanadkii 2018 bishii Oktoobar waxaan shir gudoomiyay shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharafka leh bishii labaad ee sanadkan hadda aan ku jirno xirtaankii kalfadhigii saddexaad waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen gudoomiyayaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxiixay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeyna inay u dhacdo doorashada waxa intaas dheer gudoomiyayaasha labada gole ee baarlamaanka oo iyagu naftigooda warbaahinta u cadeeyay mar wareysiga laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso waqtigii loo asteeyay sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay 29kii bishii hadda la soo dhaafay ayuu ra'iisul wasaaraha si ku celisa haddana ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu cadeeyay dalku inuu doorasho aadayo waqtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dawladda iyo dhammaan hay'adaha kale ay khusayso aan ku dhiirigelinayaan ku adkeenaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaaliya iyo wadamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin waxaad la socotaan
sooyaalka doorashooyinka dalka Soomaaliya ee ka dhici jiray qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaran jabkii waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso sidoo kale qaabka doorasho kasta way ka duwaneyd tii ka horeysay marka loo eego ka qaybgalka bulshadeena Soomaaliyeed markasta talaabo ayaan hore u qaadinay doorashadani marka inay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa oo way caddahay inay muddadaasi in ay ummadda Soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashadan xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo 50 sano ah kadib markii ugu horeysay ay doortaan xildhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka waxaan shacabka Soomaaliyeed aan kula dardaarmaya inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dawladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay Soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay Soomaaliya leedahay oo ugu horeyso qabyaaladda fakhriga iyo argagixisnimada waa ognahay qabyaaladu waa aragti gaaban weey waa aqli hoose oo guracan waa tartan iyo tabasho u dhaxeeya jifooyinka oo wada dhashay ma aha wax ka tarjumi kara danaha qaranka ama la tartami kara qaran kale qabiilku ma aha wax qaran dhisa waa ognahay qabiilku waa wax qaran dumiya oo waa u soo taagnin waana soo aragnay haddii qof aad qabiil ku doorato ama qabiil aad ku diido sidee aan ku gaarinaa dawlad hufan oo caalamka dawladahooda la tartama dhanka kale waxaan xisbiyada doonaya inay ka qayb qaataan doorashadan aan kula dardaarmaya inay uga qayb qaataan si sharciga waafaqsan ayna iska ilaaliyaan wixii dhaawici kara nabadgelyada shacabka iyo xasiloonida guud ee dalka mudanayaal iyo marwooyin waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsanno hala kala aragtid wanaado laakiin in la is ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeena ama ahayd in la helo Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qarannimo taas inay noo ahaato astaan qaran weeye mudanayaal iyo marwooyin marka aan leenahay Soomaaliya oo nabad ah macnaheedu waxay tahay Soomaaliya oo barwaaqo ah Soomaaliya oo aan u tagnay kheyraadkeedii haddii ay tahay waxa la yiraahdo blue economy kheyraadka badda ku jira kalluun iyo shidaal iyo waxay tahay hadday tahay kheyraadka waa haddii nabad la helo weey haddii nabad la helo oo ay daba socotaan nabaddu inaan u tagno kheyraadkeena bariga oo hadday tahay macdana kale hadday tahay beero iyo hadday tahay xoolo Soomaaliya waa dal qani ah laakiin shuruudu waxay tahay in la helo nabad iyo dawlad ku hagta nabadaas yaa khasab ah Soomaaliya oo mid ah oo aan la faragelin oo aan loo imaanin oo shisheeye uu soo dhaxgelin Soomaaliya oo mid ah weey iyo Soomaaliya xora oo danaheeda iyadu ay gaari karto Soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan nabad haysan Soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan midoobin oo aysan mid ahayn macnaheedu waxa weeye mar walba waxaan ku jireynaa gunnimo anaga maaha waxaan ku jireynaa waxaan aan u gudbinaynaa caruurteena iyo caruurtooda yaan u gudbinaynaa macnaheedu waxay tahay inaan ka shaqeyno nabadda inaan raadino in aan qolooyinkan dhibka wada oo argagixisada ah inaan si guud aan ula dagaalno inaan la dagaalano qabiilistayaasha dadka qabyaaladda ku shaqeysta oo ummadda Soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah inaan ka shaqeyno midnimada Soomaaliya maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda ma aha waxaan ka hadlaynaa 30 waxaad qabateen iyo waxaad qabanaysaan waxay muuqanayaan 30 sano ka bacdi ah ma hadda waxaan sameynayno ee waxa dhaxli doona caruurteena iyo kuwa ay sii dhalaan
marka mas'uuliyadeennu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareenno mustaqbalka caruurteenna iyo mustaqbalkooda waxa xaqiiqo ah inayna soo wajaheen caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen weeraradii arxandarrada ahaa ee ay geysteen argagixisadu caqabadahaas waxaa ka mid ahaa abaaro iyo fatahaado isdaba jooga caqabadahaas waxaa ka mid ahaa isbarbaryaac siyaasadeed oo aan soo aragnay intaasna waxay daba yaalaan Soomaaliya waa inay nabad hesho Soomaaliya waa inay mid tahay Soomaaliya waa inay u madax bannaan tahay go'aanadeeda u madax bannaanta haddii intaas la helo intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay sameynayaan abaarahaana naftigoodu waxa weeye waa u diyaar garoobi karnaa maxaa yeelay dalkeennu dal biyo la'aana maaha biyuhu waa yimaadaan dad bay dhibaateeyaan ama badda aadaan ama beerahay baabi'iyaan marka haddii aan helno dawlad wanaagsan oo ka shaqaysa nabadaas waxa xaqiiqo ah in waqtiga abaaraha ah waqtiga roobka ah in la isu diyaarin karo waqtiga abaaraha ah oo biyahaas naga khasaara oo badda aada in biyo xireenna loo sameeyo oo markii abaar timaado aanan ceelasha la aadin ay biyaha ay diyaar noogu yihiin intaas oo mashaakil inta badan waxaan uga soo gudubnay wada shaqayn dulqaad iyo tanaasul dhexdeena ah dawladani idinku aad qaybta ka tihiin aan sheegay oo aan iraahdo waa dawladda shacabkeena waa siina waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala aragti duwanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka Soomaaliyeed ay heleen ma aydan qaybsamin cid idin qaybisa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mooshinka ma aydan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dawladeennii aan ka wada tirsanayn inay hesho xasilooni oo shacabka Soomaaliyeed aan u adeegno hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dawladani waa dawladdii ugu horeysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday yaan waxaan siinaa waxbarasho oo u badan agoon yaan siinaa waxbarasho waxaan soo celin 24 iskuul yaan soo celinay waxaan ku soconnaa 50 iskuul yaan soo celinno sanadkan dhamaadkiisa waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dawladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas'uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jireen halka qof oo firimbiga haysta waa bixi kara hadduu rabo waa hal qof caruurta Soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna si kastaba ha ahaato weli waxa inoo haray safar dheer yaa noo haray dawladii 3 sano iyo 10 sano meeshay rabto kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay safarka oo fursad siiyey ra'iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummadeenna u shaqayno oo aan shacabkeenna u shaqayno hala kala aragti duwanaado waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda Soomaaliyeed yaad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal waxaan rabaa
walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka firimbiga hayo waqti ma hayo waqtigii qadada raalli ahaada waqti qadada la joogaaye walaal sanadkiiba haddii mar saddexdii bilood mar haddii la isu yimaado sanadkiiba haddii la isu yimaado in la isdhegaystaa wanaagsan walaalayaal si aan u xaqiijinno marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah si aan u xaqiijinno higsigeenna qarannimo waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuq tan iyo intii aad i doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isugu howlay inaan dhisno ama aan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka kow aad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee Soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisa ah inay noo suurta gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiigooda u huray siday ummadda Soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahayn niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka ah oo qorraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkooda iyo baahiyooyinkooda gaarka ah oo asaasiga ahaa ee ciidan ay helaan bil walba oo joogto ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeena qalabka sida waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeena waxaan leenahay guulaysta waxaad samayseen taariikh halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu ilaah yidhaahdo oo higsigeennana muxuu yahay Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto oo aanan ku shaqaynin shisheeye caqligiisa waxaan shaki ku jirin in dib u dhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan runtiina ay ahayd in mar hore la bilaabo laakiin waxaa alla mahadiisa ah inaan hadda ku guulaysanay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka Soomaaliyeed oo tayo leh guulaha uu ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaan amniga magaalada Muqdisho inkastoo ay safar ka qodneen wali tusaale ahaan saddexdii bilood ee ugu horeysay ee sanadkii 2018 waxa magaalada Muqdisho ka dhacay 182 fal dambi halka saddexdii bilood ee ugu horeeyay ee sanadkii 2019 waxa ka dhacay 74 fal dambi sanadkan aan ku jirno saddexdii bilood ee ugu horeeyay waxa ka dhacay 24 fal dambi fari kama qodna ilaa aan geenna meel hoose hadduu ilaah yiraahdo waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo idinku kow aad ka tihiin aan ku boorinayaa inaan si wada jira
looga wada shaqeeyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ogeysiinta mudanayaal iyo marwooyin waxaan waqti hore aan bilownay inaan dhisno ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan si aan u helno ciidan qaran oo ka howlgali kara dhammaan dalka qaybihiisa oo dhan waxaan sidoo kale wadnaa qorshayaal aan kala shaqeynayno AMISOM African Union European Union iyo qaybaha kala duwan ee beesha caalamka kuwaasoo ujeedkoodu yahay sidii aan si dhameystiran uga la wareegi lahayn mas'uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow hadduu Ilaahay yiraahdo waxa la yiraahdaa transition plan yaa la yiraahdaa waxa arrintaani marka ay hirgasho noo suurtagelaysa koow in aan anagu qaadano mas'uuliyaddeena nabadgelyo ee dalkeenna labo in aan la wareegno walaalaheena AMISOM oo maalin iyo habeen difaaca dhiigooda noo huray inaan kala wareegno hawsha waliba inaan wadamada deeqaha bixiya inaan ka nasino culayska dhaqaale ay ku bixiyaan ciidamadaas oo aan isku filnaano hadduu Ilaahay yiraahdo si ujeedooyinkaas difaaca ah loo gaaro waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanaya inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walba inay garab istaagaan mudanayaal iyo marwooyin arrimaha dhaqaalaha waxa xusuus mudan ama xusid mudan in muddadii ay dawladdan jirtay aan wax badan ka qabanay dhinaca kobcinta dhaqaalaha sidaas awgeed marka laga reebo dhibaatooyinkii dhaqaale xumo ee keentay caabuqa corona waxaan alle mahadiisa ah inaan ku guuleysanay inaan sanad walbaba aan kor u qaadno dakhliga dawladda ee gudaha kaas oo ay sabab u ahayd in aan la dagaalanno musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta dhaqaalaha waxaan idin xaqiijinaynaa inaan si wadi jir ah ama aan si wadi doono la dagaalanka musuqmaasuqa hadduu eebba yiraahdo waxaan sidoo kale maragma doonta ah in hay'adaha lacagaha adduunka ee loo yaqaano IMF-ka iyo bangiga adduunka World Bank-iga ay qoraaladoodii ugu dambeysay ay qireen in qaab xisaabeedka dawladdan uu yahay mid hufan oo daahfuran taas oo noo sahashay in laga cafiyo deymahaas tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa in ka badan 50 sano mudanayaal iyo marwooyin intaasoo idil waxaad ka ahdeen qayb maxaa yeelay xasiloonida dalka idinka iska lahaa garsoora arrimaha garsoorku waa dhexaadka nolosha ummadda Soomaaliyeed ummad kasta oo doonaysa inay nabad iyo xasilooni ku noolaato sidaas awgeed waxaan isbedel joogto ah aan ku wadnay hay'adihii garsoorka si aan u gaarno higsigeena qarannimo waxaan bilownay inaan hay'adaha garsoorka hay'adaha cadaaladda aan salka ka soo dhisno waxaana arrintaasi soo nooleysay kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan garsoorkooda sidoo kale si aan sare u qaadno tayada garsoorayaasha maxkamadaha waxaan hirgelinay imtixaano furan oo qof walba oo Soomaaliya uu ka qayb gali karo si aan u xulanno garsoorayaal u carbisan aqoonna u leh shaqada loo igmaday mudanayaal iyo marwooyin hawlahaas oo dhan waa bilow mudanayaal iyo marwooyin waxaan ayana ahmiyad inoo leh dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka qaranka waxaan idin soo jeedinayaa in idinka oo la shaqeynaya hay'adaha kale ee dawliga ah in ay khusayso arrintan in kalfadhigan waqti badan la geliyo sidii loo dhamaystiri lahaa dastuurka qaranka si markaas ay shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu codeeyaan isla markaasna ay ku dhaqan galiyaan arrimaha dibadda dawladdu waxay muddadii ay shaqeynaysay ay hirgelisay siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan is-ixtiraam wada shaqeyn iyo isfaham waxaan qayb horyaal ah ka noqonay ku soo dhawaashaha
iyo wada shaqaynta gobolka geeska Afrika si gobolku u helo xasilooni iyo horumar dhaqaale waxaan sida la socotaan aan si dhow arrimaha geeska Afrika aan uga wada shaqeynaa dhammaan madaxda geeska Afrika in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin la isugu samaynin aan isaga kaashano arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha meelna looga soo wada jeesto waxyaabaha xasilooni darrada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mid gobolka sidoo kale waxaan rabaa in aan idin cadeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqayn haddii noqoto dawladaha dariska ah in la iskaashado daris wanaag in lagu wada noolaado waxaan ballan qaadaynaa in dhankeenna arrintaasi aan ka shaqayno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka galaynin qaranimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udub dhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso waxaa caado ahaan jiray in la yiraahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad tihiin madaxdii maanta waxaana shaki ku jirin annagoo ka duulayna mabaadiidaas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u igmanay qaybaha ka mid ah mas'uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno arrintaas hadduu Ilaahay yiraahdo si aan u xaqiijino doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo nooleynta qarannimada Soomaaliyeed si kastaba haatee waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo kuwa doonaya dhiiga dhalinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yiraahdo ma liibaanaha lagu liibaano laguma liibaano dhalinyaradu inay ka fogaadaan 30 sano oo khibrad ay leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiil baa la soo galiyay haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixis dhalinyarada Soomaaliyeed intuu waqti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkooda ka shaqeeyaan dawladdii kala shaqeyn lahaydna waa annaga mudanayaal iyo marwooyin shacabka Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado badan oo aad u adag dagaal qabiil dagaal argagixisnimo abaaro iyo dadkii iyo dunyadii halakeeyay iyo wax la mid ah wax kasta oo na soo maray waxa alle mahadiisa inaan wali Soomaali ay taagan tahay inaan wali aan jirno insha Allah Soomaalina waa jiri doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada aan ka codsanayaa inay laabaan dadaalkooda ku aadan wada shaqaynta ee la leeyihiin dawladooda iyo ciidamadooda si aan uga gudubno masiibooyinkaas dabiiciga ah iyo kuwa dadku ay sameeyeen ee dalkeena halakeeyay waxaa sidoo kale ummadda Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay nagu taageeraan sidii loo heli lahaa dawladnimo Soomaaliyeed oo ka hufan qabyaaladda faqriga iyo argagixisnimada kuwaasoo ah saddexda cadow ee dilaaga u ah dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed oo aan doonayno in aan dib u soo yegleyno aan xoojino mudanayaal iyo marwooyin waxa aan si nasasho la'aan ah aan isugu dayn inaan kor u qaadno xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah xiriirkaasi oo ku dhisan wada tashi iyo isfaham
iyo in la xurmeeyo dastuurka kumeel gaarka ah ee qaranka dadaaladaasi waxay qayb ka ahaayeen sidii loo gaari lahaa higsiga guud ee dalkeenna iyo dalka Soomaaliyeed waxaa alla mahadiisa in aan guulo ka gaarnay dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedyada shacabkooda matala danaha shacabkoodana ka shaqeeya waxaan gaarsiinay dowlad goboleedyada gargaar caafimaad COVID-19 oo ah ka hortagga iyo la dagaalanka caabuqaas inta tabarteenu ay tahay waxaan gaarsiinay dhaqaale gargaar ah kuwa musiibooyinka fatahaadaha iyo daadadku ay waxyeelayeen mudanayaal iyo marwooyin dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynayaa hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadalladeennii wax kasta oo jirana aan ku dhamayno walaaltinimo wada hadal iyo is-afgarad gabagabadii gobolka Banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajeynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelnahay oo aanu si gaara meel gaara iga taala oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed mar kale ومحسنتين مركله waxaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ugu baaqaya inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuulada iyo xarumaha caafimaadka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismayaasha dawladda ama wadooyinka dekadaha iyo tan hadda aad wadaan oo muhiimka ah sidii aan u hirgelin lahayn doorashooyin ka soo socda waxaana idinku dardargelinaya ama idinku dardaarmaya inaan ka difaacno dalkeena inaan diinteena aan difaacno ka difaacno argagixisada inaan ka difaacno qabyaalistayaasha ama qabyaaladda inaan ka difaacno in aan la dagaalno faqriga waa saddexda cudur ee dilaaga u ah dowladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqayaa inuu idin furmay ama idin furan yahay kal fadhiga toddobaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadku way fadhiyayaan madaxweynaha un baa baxaya dadka kale oo dhan waa السلام عليكم magacaygu waa Nasteexa Maxamed maanta waxaan rabaa inaan inoo kariyo maraqa hilibka lo'da oo lagu kariyay digirta cagaarka iyo baradhada maraq digaaga jumbo waa caawiyaha muhiimka ah jikada marka hore waxaan ku
kululaysanaynaa dabka marka ugu horeysa waxaan kululaysanaynaa saliidda si aan hilibka ugu darsano saliidda markay qandac ku noqoto waxaa ku darsanaysaa hilibka markuu si fiican kuugu guduutaa waxaa ku darsanaysaa alaabta kale hilibka hadda waxaan sugnay 5 daqiiqo ah saa arkaysaa wuxuu noqday brown marka waxaan ku darsanaynaa basasha sidoo kale si ay noogu carfoonaato waxaan ku darsanaynaa 4 xabo hayl ah waxaan ku darsanaynaa toon la shiiday waxaan kaloo ku darsanaynaa subag falaaq waxaan kaloo ku darsanaynaa basbaaska guduudan intaas waa nagu filan tahay waxaan kaloo ku darsanaynaa huruuda qaado barkeed waxaan kaloo ku darsanaynaa sanjibiil shiidan ayadana qaado barkeed waxaan kaloo aan ku darsanaynaa xawaashka isagana oo shiidan qaado barkeed waxaan iskugu walaaqaynaa si fiican ilaa ay iska dhaxgalaan hadda qudaarta wasuuqa ay dhaxshilmantay waxaan ku darsanaynaa yaanyada waxa sameynaysaa yaanyada waxa ugu walaaqaysaa si fiican si ay iskugu shiilmato sidoo kale waxaan ku darsanaynaa yaanyo shiishid yaanyada kale si ay isku dhaxgalaan waxaan iskugu walaaqayaa si fiican hadda saa arkaysaan yaanyadii waxay noo karsanay 5 daqiiqo si fiican ay u karsantay hadda waxaan ku darsanaynaa mustard haddana waxaan ku darsanaynaa kabsar caleentii aan jarjaranay cuntadayda hadda si ay u macaanaato waxaan ku darsanayaa 2 xabo oo maraq digaaga jumbo ah ayara ugu bidbidti si uu cuntada u dhaxgalo ugu jijabi adoo taxadaraya maraq digaaga jumbo wuxuu ka caawinayaa reerkaaga oo idil inay cuntada ay cunayaan ay ku socoto oo ay si fiican u cunaan wuxuu ka kooban yahay dhadhan gaar ah oo kugu socodsiinaya cuntada waxaan ku darsanayaa digirtii aan hore u karsaday digirta ma ahan mid ciiriin ah hore baa wax yar